aqoon-yahan Caydarus Xaaji Xasan Cabeer oo kamid ah aqoon-yahanka reer Somaliland ayaa talooyin muhiim oo ku saabsan adeegga e-dahab u soo jeediyay ganacsade Maxamed Siciid waxaana aqoon-yahanku sheegay in haddii uu talooyinkaasi qaato uu wax badan ka faa'iidi doono dhanka kale aqoon-yahanku wuxuu ka hadlay aragtidiisa ku aadan barnaamijka baaq shacab waxaan doonayaa maanta inaan laba mowduuc ka hadlo mid waa fariin waxaana fariinta u dirayaa oo ay ku socotaa ninka la yiraahdo Maxamed Siciid oo loo yaqaan dahabshiil oo ah ganacsade Somaliland oo reer Somaliland ah waxaan leeyahay Maxamed Siciid ilaahay cimriga caafimaadka waa ku barakeeyo halkan waxaan kaaga soo gudbinayaa waxaan hayaa fikrad ama new idea lagu horumarinayo adeegga hadda shaqeeya ee e-dahabka adeegga waxaan doonaynaa qaabka loo horumarin lahaa oo uu la tartami lahaa adeegga miciisa ah ee saadka Maxamed Siciid waxaan leeyahay fikraddaas waqti aan aad u fogeyn bay ugu dhalatay dadka oo dhan waxay isweydiin karaan maxaa ku keenay ninkan fikraddan inuu helo carabtu waxay tiraahdaa alxaajatu ummatun min al-ikhtirac baahida ayaa waxay keentaa fikradda in wax la ikhtiraco ama in wax la abuuro baahida keenta ama necessity is the mother of the invention يعني in wax laga fikro ama wax la keeno waxa keenta marka waxa loo baahdo waqti aan aad u sifogeyn waxaan u baahday lacag waxaan la hadlay qof kamid ah reer Somaliland aanu ehel wadaagno wuxuu qofkaasi weydiiyay lacagta aan ku soo diray masjidta e-dahab anigii dadkii ugu dhawaa waxaan ka weynay e-dahab meel cidla oo gadoonayna waan joognay sida daraadeed waxa igu kaliftay يعني inaanu weyno lacagtina sidii ku misgarayno ومع ذلك waxaan ka fikiray qaabkii loo horumarin lahaa e-dahabka baan ka fikiray fikradii baan hayaa fikradda waxaan doonayaa in la wadaago Somtel iyo dahabshiil baan doonayaa in la wadaago insha Allah ta'ala fikraddaas waxay noqon doontaa fikrad lagu najixi doono dhammaan ummadda reer Somaliland dhigooda ayuu raaci doonaa adeegga e-dahab haddii Ilaahay yiraahdo aanu kulanno dahabshiil inta marka laga tago waxaan doonayaa inaan ka hadlo mowduuc ayaamka ugu dambeeyay ka socday baraha bulshada waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii ahayd boqolka dhalinyarada ee soo jeedisay baaq shacab dhalinyarada waxaan leeyahay wax loo baahnaa baa keenteen aad baad u mahadsantihiin waanu idin dhiiri gelinaynaa dhalinyaradu waxay ka wada socdaan social mediaha يعني wixii wanaagsan waxa fiican in la isku taageero wixii xun in la iskaga digo ayaa wanaagsan sida daraadeed dhalinyaradu waxaan leeyahay buuq baad ka guurteen laakiin waxaad u guurteen baaqna waxa weeye waxa dawladuhu ay yani inta badan lagu saxo aanay wada khaldan maraan xukuumadda iyo miceedana waxaan leeyahay kelmadda ah haddii cid keento fikir wanaagsan ama horumar kelmadda ah farmaajo ka dambeeya ama xamar baa laga maamulayaa kelmaddaas waa kelmad deelqaaf ku ah cid kasta oo marka lagu yiraahdo waxayna caayaysaa caqliga reer Somaliland waxay caayaysaa dadka aragtida fiican leh malaha Somaliland darisku ma fakari karaan oo iyagu wax wanaagsan ma keeni karaan ma farmaajo baa wax fiican keeni kara ma reer xamarkoon baa wax fiican la fari kara inagu miyeenan caqli keeni karin aynu dalkeena khaladka kaga qaban karno dalkeena aynu ku Cabdiraxmaan Yaasiin Abubakar British warbaahinta SBC Hargeysa